Jooji dhaqamadan. Ku soo dhawaada Tusaale Channel. Waxaan idiin soo gudbinayaa dhaqamo aynan jeclayn dadka in agtooda lagu sameeyo. Fadlan haddaad tahay qof sameeyo, ka har maantaba. Midda koowaad, dilaacinta fimanka wejigaaga. Fadlan haddaad tahay qof sameeyo, ka har maantaba. Midda labaad, isxoqidda faraha badan. Heer la maqlo cidiyahaaga iyo jirkaaga oo dagaalamaya waa caado xun. Fadlan haddaad tahay qof sameeya, ka har maantaba. Midda saddexaad, sanfaraynta iyo diibsiga. Kuwa kuugu salaama farahaas waxay kaaga qaadayaan jeermis. Adiguna haddaad tahay qof sameeya, fadlan ka har maantaba. Midda afraad, nadiifinta dhagahaaga. Dabadeedna aad qoriga dhagahaaga ka soo bixisay eegto ama uurisato waa caado xun. Fadlan haddaad tahay qof sameeya, ka har maantaba. Midda shanaad, ilkahaaga oo cadaysato adigoo la jooga qof ama bulshada dhexdiisa ku dhex jira waa caado xun. Fadlan haddaad tahay qof sameeya, ka har maantaba. Midda lixaad, hadalidda marka afkaaga cunno kaaga buuxo. Waxaaba ugu daran marka aad qof isla cunaysaan, wax afkaaga ka soo baxo cunnada dib ugu soo noqdo. Waa caado xun. Fadlan haddii aad samayso, maantaba ka har. Midda toddobaad, xanjada oo buufiso. Waxaa aad ugu badan hablaha. Inaad dadka hortooda ku canjaliso ayaaba ceeb ah. Ka waran haddii aad buufiso iyo dhac iskugu darto. Waa caado xun. Fadlan haddii aad samayso, maantaba ka har. Midda siddeedaad, daacada iyo aaryada. Waa labo aan kala dhicin, meelaha ay ka yimaadaan baase kala duwan. Fadlan haddaad tahay qof bulshada dhexdeeda ku sameeya, maanta kadib ka har. Midda sagaalaad, cunidda cidiyahaaga. Waa caado xun oo dadka intooda badan dhibsadaan. Fadlan haddaad tahay qof sameeya, maantaba ka har. Midka tobanaad, qaadashada alaabahooda khaaska ah sida moobilkooda ama waxyaalo khaas u ah qofka aad u imaatay. Waa caado xun, dadka intooda badanna dhibsadaan. Fadlan haddaad tahay qof sameeyo, ka har maantaba. Muuqaalkeennana halkaas ayuu ku eg yahay. Fadlan wixii aad ka faa'iiday kommentiga inoogu soo qor. Mahadsanid.